barakaatu asxaabteeda qaaliga aan jeclahay salaan aad iyo aad u qiimo badan ayaan idin soo jeedinayaa waxaan idin leeyahay salaanta islaamkaan idigu salaamaya ugu qiimaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaad hore sidii rootiinka ahayd waxaan bilaabayaa qur-aankii laakiin asxaabteeda qaaliga aan jeclahay meel dheer baad igaga taallaa runtii walahi asxaab qaaliya oo waxaad tihiin aanan soo koobi karin halkaad igaga taallaan miisaanka xasanaadka allah idoo ku daro dhiirigelinta meel kasta adiga siinaysaan ilaahay waxaan idinka baryayaa miisaanka xasanaadka inuu idoon ku daro ilaahay rabbiga raxmaanka quwada liqaniga qof kastaaba halku ka xiilan yahay ka xiil tiro ummadda muslimiinta meel kastay joogaanba ilaahay xafido ducada haddaynu kaga nimaadno habla fara badan ayaa soo weydiiyey faatumina khayrkii maad iska daysay dadka qaar kulle khayrka saasay ugu roorayaan dadka qaarna adaaba sheegaya kuwa khayrka ku camal fala allah inaga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala iskamaan daynin waad u jeedaan halkaan maraayo waxaan kasoo bilaabay gabadhay qur-aanka ilaahay ula tartan in ilaahay adigana miisaanka xasanaadka allah kuugu daro dabadeedna waxaa laygu dhahay looqaa laygala soo hadlay qur-aanka iyo khayrkii maad naga joojisay maya ma joojinin group waan sameeyey xataa cidi kuma jirta laakiin hadalala cid ku jirta ma jirto waxaan rabaa daqiiqada yar inaan aqriyaan rabaa qur-aanka marka insha allah biidnillaahi raxmaan halkaad ujeedaan waan dhameeyey halkaa hadda way calaamadsan tahay waan ka qaadaya insha allah biidnillaahi raxmaan waxaan bilaabayaa laa uqsim bihada albalad insha allah walfajru insha allah labadaas suuradood ayaan rabaa in aan jilay ka dhigo kitaabka gabigiisa waxaan rabaa inaan xafido insha allah biidnillaahi raxmaan sida hadafkaygu yahay insha allah biidnillaahi raxmaan asxaabtayda qaaliga markaa ay isoo weydiisay inaan idinka jawaabay ayaan filayaa insha allah mana dayn doona inta noloshayda ka hadhay nolosha koowaad waa qur-aanka haddaad rumaysan tahay iyo haddaanad rumaysnaynba haddaad doonaysa inuu ilaahay wax kuu barakeeyo barakallah baraqiisa aad noqoto ku dadaal kitaabka ilaahay haddaad doonaysa inaad horumar gaadho adduuniya aakhiraba ku dadaal qur-aanka ilaahay intaad qur-aankaaga ilaahay xafido gurigaaguna waa kuu qurux badan yahay shaydaan iyo shar iyo il iyo xasad iyo wax ku necabna wallaahi inaanay gurigaaga soo galayn haddaad subax kasta qur-aanka gurigaaga ku siraado marka koowaad gurigaaga ad waxaan kuli qur-aankaa ku bilowda markaasaa usoo kacdaad soo cadayataa tukata salaadaada ilaahay waajibkii kulahaa barta aad iska dhigtaa tasbiixsato shaqada aad soo dhamaysato muxuu ahaye salaadaada iyo wixii ilaahay kugu waajibiyey kabacdina ilaan waqtigan caruura kuma soo jeedo cidi kuma soo jeedo quraac ma sameynaysid inta aad quraacda ka gaadhayso faa'iidada ilaahay kugu dhashay ka faa'iideyso asxaabtaydii aan jeclaa waxaan idin leeyahay in aad iga faa'iideynayaan filayaa ma dhammaynin weli halkaan rabay maan gaadhin laakiin insha allah biidnillaahi raxmaan waan gaadhaya intaasoo dhan waan soo akhriyay maasha allah markaa labadaas suuradood hadday suurada igu adkaato waan dhigayaa suurad keliya ataan rabaa inaan xafido hadday labada suuradood ii jilicsanaadaana labadaba waan wada qabanaya hadday saddexda hadda suuradaha gaagaaban oo kale 3 iyo 4 ayaan u qaybiyey maasha allah tabaarakallah horena waan usoo dhigay markaa waxaan rabaa inay maskaxdayda program weyn oo qur-aanka inaan ka dhex furo ayaan rabaa insha allah biidnillaahi raxmaan oon kitaabka aad arkaysaan gebigiisa badasho ka qayba insha allah ilaahayna hay fududeeya asxaabta qaaliga ii soo duceeya hadafkaygu waa sidaa idinkana hadafkiina khayr baan la jecelahay asxaabtayda qaaliga ahayd ee isoo weydiisay waxaan filayaa inaan kelmadda idinka jawaabo miisaanka xasanaadka allah idinku daro ila tartama qur-aanka ilaahay ula tartama kan ayaa aakhiriya adduunba idiin hadlaa kanba aakhira idiin hadlaaya adduunkana aad ku liibaanaysa asxaabey haddaad ogtahay khayrka koowaad ee khayrkaa ku dhaafaysaa waa qur-aan ama iska indhatir ama ha iska indhatirin insha allah waqti gaaban ayaan rabay insha allah biidnillaahi raxmaan waxaan idin leeyahay subax wacan oo wanaagsan ilaahay waa ka ibaray inaan subaxii salaada kaco waa ka ibaray in kitaabka qur-aanka maasha allah tabaarakallah wax kasta wuu ibaray ilaahay subxaanahu watacaala
gabadhii xafida ee sidii uu ilaahay ugu talagalay uga soo baxda rabbiga raxmaanka quwada leh ee qaniga ah iga dhigo dambi iyo duluubka ka dhaafayaana waa isaga ka qalbigaaga ku xasilayaana waa isaga marka waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtaydan jeclahay dhammaantiinba waa idin salaamaya waa idin jeclahay waxaan idin leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro